waxaa maalmihii ugu dambeeyey muran ka taagnaa dhismaha garoon diyaaradeed oo ay yeelato degmada Baraawe iyadoo odayaal ka soo horjeesteen in degmada Baraawe oo ah caasimadda koonfur galbeed loo dhiso garoon diyaaradeed. golaha dhaqanka iyo siyaasadda ee beesha tuni ayaa aad u cambaareeyay arrintaas iyadoo ku baaqay inay iyaga dhulkaasi bixiyaan iyagana ay leeyihiin qaladna ay tahay in ummadda horumarkeeda laga horjoogsado. nabadoonka guud ee beesha tuni ahna afhayeenka golaha dhaqanka iyo siyaasadda beesha tuni caaqil nuur cabdiraxmaan maxamuud ayaa sheegay in dhulkaasi ay beesha tuni bixisay lagana hor istaagi karin dhismaha garoonka. waxaan u sheegayaa dadka horboodaya xilligan waa xilli nabadeed, dowlad baa dalka kaga jirta, dowladdaasina waxaa aasaas u ah in nabadda la baahiyo. uma baahni xilligan in maatada marasta la barakiciyo. maamulka xagga ka jirana dadka geystay waa annaga beesha tuni ayay matalahayaan. waxaan idin sheegaynaa oonu idin caddaynaynaa oo aan geedna uga soo gabanaynin. doraad annagaa idin dejinay, haatanna diyaaran u nahay dhulku hadduu idinku yaraado meel kale inaan idin dejino. waxaana sheegaynaa aeroboorkaas waa dhul tuniyeed, tunni baa iska leedahay. sidoo kale rag baa ku andacoonaya, waxay leeyihiin xasan sheekh maxamuud baa annagana siiyey. xasan sheekh maxamuud ma bixin karo. sidoo kale shariif baana siiyey, dadaa ku andacoonaya ma bixin karaan. xilligan hanugu celinana samaashameydii. sidoo kale nabadoon cabdinuur cabdiqaadir cabdinuur bongo ayaa si gaar farta ugu fiiqay odayaalka diidan dhismaha garoonka. baaq waxaan u jeedinayaa odayaashan oo haweenka iyo ilmaha isku soo reebaan oo hormuudka ah saaxiibkay digir. baaq waxaan u jeedinayaa waxaas waa soo dhaafnay, xilli dagaal waa soo moodnay, lexdameeyda ilaa hadda dagaal waa soo moodnay. waxaan ku jirnaa dib u heshiisiin. ma aha hadda in oo waxaa waaye baseef iyo bilaayo ee lagu taa tuna dooni mayno. tuna iyoo guuraysa oo qaxooti ah kaaraan ma imaanan, waddankay u dhalatay degan tahay. waxaa la rabaa in maskaxda laga shaqeeya. laba oday oo kula jirtan waxaa waaye mid waxaa waaye daaltarifa laga wadaa u kasaa, kii kalena waxaa waaye maxaa la dhahaa goygaal. meesha dhaqanaa jiray digirow. waxaa waaye saaxiibkay horta ninka koo ku reebi jiray ani waaye. anaa hadda waxa waaye anaa macnaha dhaliilka anaa iska leh, anaa baraawo laayacay. waxaa waaye waxaana sii xasan sheekh maxamuud, maxaa la yidhaha shariif sakiin iyo lafta gareen. waxaa waaye dowladda kumeel gaarka haydaa ugu sareeya ma dhiibi karan dhulka. maxaa la yidhaha xasan sheekh maxamuud dhul ma dhiibi karo, shariif sakiin dhul ma dhiibi karo. wararkii oo maxaa la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur haddaad raacda maxaasi mareer guriha kuu geeya, laakiin dhulkaas dhul oo qontomey haddii la deganaad milka aad u yeelinays maaha, dhul tuniyeed waaye. shabeelka waa dhimi karaa maahan oosma uno. anigoo ah nabadoon maxamed nuur aadan ka tirsan golaha dhaqanka iyo siyaasadda beesha tuni, waxaan halka ka caddaynayaa inay dhiile ka soo yeertay Baraawe. dhiiladaasna loo baahneen, xilligeedana laga tegay. dadka wax degan weesh waxaan ogeysiinayaa laf walba inay laf ku soo degtay. dib ha loogu noqdo, taariikhda ha la raadiyo, dib ha loogu noqdo. jaanta rogan waxba maku hagaagayo. tanyatii waa la wada iyo 90 ilaa hadda jaanta rogan waa wax waa lagu keeni waayo. ras ilaa goobeen dhul tuniyeed waa ciddi degan. hal habeenkii kusoo yidhabeen labaad waa la ogahay. anoo ka hadalaya afka aqoon-yahanada iyo dhalinyarada beesha shangamaas tuni may fadaayo ina baaqi yar aan micnahaas i jeediyey. dadka oo maatada ahaayeen oo masaakiimiinta oo qoraxda dhowr beri isku teegnaayeen iyo walaagi iyo banaanbaxaayeen aqoon iyo ay lahayna, iyo odayaasha oo marin habaabiayeen dhalinyaradaasi. taasi may micnaha ay ka qasabto inaan oo baaqaasi i jeediyey. dadka banaanbaxaayeen ulajeedada iyo ina banaanbaxaayeen ina ogaadan la baahina, sababtoo ah shacabka meeshka banaanbax may dheheenooyo dhulka kaan nanoo qaaday dhul oo lagu qaaday meesha ina ajiraan horta ina micnaha iyo ogaadeen. sababtoo ah dhulkaasi dhul shangamaasu
dhul shangamaasna haddii oo libiya dad is okool tashata mal cid is okool hayaat mal wala madaxweynaha is okool tashin wala ra'iisul wasaare is okool tashin wala baarlamaan is okool haddaan aan ku hadlayo afka siyaasiyiinta madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen iyo golihiisa wasiirada cusub waxaa ka rajeynayaa in la yimaadaan howl adag shaqo hortaalo madaxweynaha waxaan farayaa in uusan ku degdegin sida Shariif Xasan dadka iska hor keenay Shariif Xasan dhibaato meesha ka abuuray ee deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose iyo koonfur galbeed dhul la isku haysta iyo waxyaabo aan loo joogin dhul dan guud ah oo airport loo bixiyay hadda aad u jeedaan marka waxyaabahaas oo kale madaxweynaha waxaan ugu digayaa Laftigareen in isku fududaanin wixii dan guud ah dadka deegaanka u dhashtay baraawe beesha tunni ayaa muxuu ahaa wixii dhul bixis ah ku shaqale inay bixiso dhulka airportkana ayaga hore u bixiyay si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay odayaal ka soo jeeda beesha tunni ay degmada baraawe ay si toos ah uga hadlaan xaaladda ka taagan dhismaha garoonka Ismaaciil Mire JTV Shabeellaha Hoose